maanta waxaan rabnaa inaan dul istaago qanjirka ragga ku yaalo ee prostate gland-ka. waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhanka raganimada uu ka qabto marka labaad haddii uu xanuunsado ama cilad caafimaad dare ee soo wajahdo waxyaabaha lagu garan karo. intaanan barnaamijka gudagelin saaxiibayaal waxaan idinka rabaa marka hore inaad subscribe-ka saartaan kanaalka, su-aalna aad iga soo weydiisaan adigoo si toos igala soo xiriirayo address contactigayga yaalo dhanka YouTube description-ka. sidoo kale haddaad igala socoto dhanka iyo Facebook-ga waxaan kaa codsanaa like-ta iyo follow-ga inaadan naga hilmaamin. qanjirka prostate gland-ka wuxuu ku yaalaa qaybta hoose ee kaadi haysta. dabcan wuxuu ku hareereysan yahay ama uu ku wareegsan yahay tubada kaadida ee soo marta ee kasoo baxdo kaadi haysta ee loo yaqaano urethra. sidoo kale qanjirkana waxaa soo dhexgalo tubada soo qaada ama tiyuubka soo qaada biyaha ragga ee lagu sameeyo testicularka ama xiniyaha, kaasoo loo yaqaano vas deferens. waxyaabaha ugu muhiimsan ee qanjirkan uu qabto waxaa ka mid ah marka ugu horeyso uu qofka uu biibaxayo biyaha marka ay kasoo gudbaan tubooyinka vas deferens ee soo dhexgalaan qanjirka gudihiisa intaysan urethraha u gudbin tubada kaadi mareenka. qanjirka wuxuu soo daayaa dhacaan kaasoo u sameynaya shahwada ragga ama semen fluidka mid tayadeedu aada u sareyso, difaaceedu wanaagsan yahay, waxtarkeedu wanaagsan yahay. sidoo kale qanjirkan wuxuu ka dhigaa marka uu qofka uu biibaxayo inuu u sameeyo ejaculatory duct in si xoog lah uu biyaha u tuuro, dabcanna si fudud ay ku gaari karaan dhanka iyo xubinta dumarka si aysan biyaha aysan dhexda ugu hakanin ama aysan u noqonin mid xawaaraheedu aada u yaryahay, si humidity-ga ama acidka haweenka ku badan ee ugu ilaasay in shahwada aysan kala furfurmin ama aysan noqonin mid waxtarkeedu aada u yaryahay. sidoo kale qofka marka uu kaadinayo qanjirkan, kaadida marka ay kasoo gudbeysa dhanka iyo kaadi haysta wuxuu ka qayb qaataa in fiber muscleska uu ka kooban yahay qanjirka ama murqaha uu leeyahay iyo unugyada ay leeyihiin in relaxation badan ay sameeyaan si xawli fiican ee kaadida ugu gudubto. qofka marka uu kaadinayo kaadidiisa ay u noqoto mid tiro fiican u leh. inkastoo qanjirkan uu ka mid yahay qanjirada ugu muhiimsan dhanka iyo raganimada, dhanka iyo taranka, balse mararka qaarkood waxaa soo asiibi kara ama ku dhici karo xanuuno kala duwan. xanuunada ku dhici karo qanjirka prostate gland-ka waxaa ka mid ah inuu qanjirku uu weynaado, unugyadiisa aada ay u weynaadaan. waxaa loo yaqaanaa benign prostate hyperplasia. isbedel ayaa ku imaanaya qanjirka ayaa wuxuu sameynaa weynaansho ama barar unugyadiisa. sidoo kale qanjirkan prostate gland-ka waxaa saameeyo mararka qaarkooda caabuq ama inflammation, waxaa loo yaqaano prostatitis. in qanjirka uu ku dhaco caabuqaas wuxuu ku imaani karaa meelo badan, in qofka ku daahday infection dhanka iyo cudurada galmada. sidoo kale inuu qofka uu qabo infection dhanka iyo kaadi haysta ama tubooyinka kaadi mareenada waxay sahli karaan in si fudud uu usoo gaaro ama infectionki uu saameeyo dhanka iyo qanjirka prostate gland-ka. sidoo kale xanuunada qanjirku ku dhici karo waxaa ka mid ah in unugyada qanjirka ay ka dhex dhasheen cancer celleska. in qanjirka lagu arko unugyada kansarka waxay ka dhigan tahay in si toosa ugu faafi karo dhammaan qeybaha kala duwan ee qanjirka. sidoo kale marka uu qanjirka ku sameysmo cancer celleska ama unugyada celleska kansarka waxay noqonaysaa in uu u gudbi karo dhanka iyo kaadi haysta, kaadi mareenka, tubooyinka kaadi mareenada kore. taasina waxay ka dhigan tahay in ay noqoto in qofkaana uu ku dhacay kansar nooca loo yaqaano metastasis, inuu u gudbo meelo kale ama xubno kale oo ka baxsan xubantii uu ka bilowday. ragga marka ay da-dooda ay ka badato 50 ama 60 intuu u dhexeyso haddii jeer waxay u nugul yihiin inuu ku dhaco ama in caafimaad dare ay kasoo wajahda dhanka iyo prostate gland-ka. inkastoo da-da marka ay aada usii badato uu qofku usii nugul leeyahay in qanjirkaas uu aada u weynaado ama u bararo ama kansar uu kaga dhaco. marka ay noqoto in qofka uu saameeyey waxaa loo yaqaano BPH ama benign prostate hyperplasia, haddii jeer waxyaabaha sida tooska u keeni karo waxaa ka mid ah
waxaa ugu horeeyo dhacaanka loo yaqaano testosterone in jirka uu bedesho dhacaanka loo yaqaano DHT, dehydrated hormone testosterone, kaasoo uu jirka had iyo jeer uu ka dhiganayo dhacaanka testosterone inuu ka dhigo DHT. arrintaas waxay sababi kartaa in uu bato ama inuu weynaado unugyadii uu ka samaysnaay qanjirka prostate gland-ka. waxyaabaha ugu muhiimsan ee isbedelku ku imaanaya dhanka ee qanjirada gaar ahaan prostate gland-ka marka ragga ay weynaadaan ayay ka mid tahay. dabcan waa waxa si toosa u saameyni karo marka ay qofka da-diisu aada u weynaato, taasoo jirka testosteronka lasoo deynayo uu ka dhigayo dhacaan loo yaqaano ama uu bedelanayo DHT, dehydrated hormone testosterone. arrintan marka ay dhacayso benign prostate hyperplasia, qofka waxaa ku dhacayo qanjirkii prostate gland-ka inuu noqdo mid aada u weynaada, isbedel weyn uu ku imaado qaab ahaan, inuu aada bareshar badan cadaadis badan uu saaro dhanka kaadi haysta, sidoo kale inuu cariiri uu geliyo tubadii kaadi mareenka ee uretra, taasoo si fudud aysan ugu imaani karin kaadidii. calaamado badan ayuu qofka dareemi karaa. dabcan waxaa ka mid ah in kaadida marka ugu horeyso ee aada ugu adkaada inuu kaadiyo, sidoo kale kaadidiisu inuu isku arko inay noqoto mid aada usii yaraanayso, halka uu dareemayo kaadi badan inay u fadhido kaadi haysta. waxa loo yaqaano dribbling ayuu isku arkaya in kaadida ay noqonayso mid aada u dhibceyso oo aysan noqonaynin mid xawaaro fiican leh. musqusha dabcan waxaa laga yaabaa qofkaasi in muddaa uu fadhiyo ee kaadidan ay ku adag tahay. calaamadaha kale lagu arki karo waxaa ka mid ah qofka markii arrintan muddo badan ay sii hayso inay mararka qaarkooda uu kaadida ula socdo dhiig, sidoo kale inay kaadidu ay ku xiranto dhanka iyo kaadi haysta ee noqoto mid aada u adkaata, sababtoo ah waxaa bareshar badan ama cadaadis badan ugu imaanaa dhan qanjirka prostate gland-ka, kaasoo sameynaya inuu squeezing uu ku sameeyo ama cariiri badan uu geliyo kaadi haysta. arrintan waxay noqonaysaa in qofka uu isku arko kaadi mar walba soo lalaabata frequency, sidoo kale inuu isku arko in kaadidu ay tahay incontinence, inay ka fakanaysa mararka qaarkooda inuusan musqusha geyni karin ama uusan gudbin karin kaadida. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, halkan ayaan ku joojinaynaa mowduuca prostate gland-ka.